dadka kommentiyada qora ka mid ah ayaa kommentiga wuxuu ugu soo qorayaa jeceshahay Cristiano Ronaldo iyo hooyada maadaama aad ku waalan tahay taageeradaada u haysa Cristiano Ronaldo balse si fudud ayuu wuxuu ugu jawaabay This guy asked me CR7 on my mom. balse ugu horreyntii kusoo dhawow channelkeena haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir haddii aad horey nala joogtayna muuqaalka like iyo share waa inoo muhiim mahadsanid. Kani waa Ishow Speed waa live streamerka ugu caansan caalamka xilligan la joogo waana qofka biladda haysta sanadkan 2026 ahna qofka ugu caansan ama ugu horeeya live streamerada caalamka ama kaalinta koowaad ba ku jira. And the winner for Streamer of the Year, Ishow Speed. I love y'all so much. I appreciate everybody. Y'all already know it's Speed here. We're going to backflip, y'all. balse dhowaan ama muddo dhowr maalmood ka hor ah ayay ahayd markii uu soo bandhigay ama podcast lagu waraystay laguna weydiiyey noloshiisa. waxyaalihii la weydiiyeyna waxaa ka mid ahaa maxaa loogu arkin noloshaada qoyskaaga qayb ka mid ah live streamerada ama muuqaalada aad soo duubto isbishale ama qofka ugu muhiimsan oo la weydiiyeyna waxa uu ahaa hooyadiis oo waxaa lagu weydiiyey maxaa dhacay loona arkin hooyada ayadoo kaasoo garab muuqanayda ama adigoo ka hadlaya hooyo. su-aashii la weydiiyeyna waxa uu ugu jawaabay hooyaday aniga oo yar oo aan qaangaar ahayn ama under age ah ayay wixii iga ceyrisay guriga waxayna igu tiri guriga bannaanka iiga bax. maalinkaas ay hooyaday guriga bannaanka iiga bixinaysay ma aanan haysanin wax garab ah mana haysanin wax nolol ah ama lacag aan ku noolaado. maalinka ay hooyadiis guriga ka ceyrinayso Ishow Speed waxa uu jiray 14 sano waxauna live streameradan iyo waxyaalahan ama aaladahan laga soo galo zoomka ama aaladahan laga soo galo liveka uu bilaabay asagoo da-yar lahaana mustaqbal weyn riyo weyn ay ka dhex guuxayso balse waxa uu xilligii uu bilaabayay ama muuqaaladan live streamerada waxa uu la deganaa hooyadiis oo guriga isla deganaayeen balse maamadu qof weyn ayay ahayd oo shaqeeya mana aysan u ogolayn qayladiisa oo aad u tiro badneed. qolka ka xiga uu deganaa ma aysan u ogolayn maamadu inuu qayliyo ama wixii doono iska sameeyo. muddo in ka badan 10 jeer ah muuqaaladiisa ayaa waxaa lagu dhex arkayay hooyadiis oo soo dhexgelaysa iyadoona u sheegaysa xilligii uu yaraa inuu ka dhaafo qaylada haddii kalena ay guriga bannaanka uga saari doonto maadaama aysan xamili karin waxyaalaha iyo qaylada iyo dadka uu la hadlayo maadaama ay shaqaynaysay waqti badan shaqana ay ka timid waxaana in badan isku soo aadi jiray ama isku xilli noqon jiray xilliga ay hooyadu shaqada ka timaado iyo xilliga uu asagu rabo ama dadka ugu badan ay daawan karaan oo uu rabo inuu live-ka soo galo ama saaxiibadiis ay ku jiraan internetyada ama live-afka si uu live u soo galo waxaana isku soo aadayay xilligaas hooyo guriga joogta iyo isagoo raba inuu live soo galo. in badan oo ka mid ahna waxay keentay inay asaga iyo hooyo isku dhacaan marar badanna ay hooyo u sheegtay inay bannaanka isaga bixi doonto uusan mar dambe guriga kula noolaan doonin haddii uusan joojin live streamerada iyo waxa uu sameynayo waxayna ku boorisay in badan ama ugu hanjabtay inay ka qaadan doonto alaabtiisa uuna joojiyey. in badan isagoo live ku jira ayaa lagu dhex arki jiray muuqaaladiisa xilligii uu yaraa inay hooyadu ka joojiso dhammaan wax walba oo live ku jiro ayna tiraahdo iga dhaaf buuqaaga. balse maalmo yar kadib wax walbaahi waa isbedeleen oo da-diisu waxay gaartay 14 sano. hooyana waxa ay go-aan ku gaartay xilligaas inay gurigeeda bannaanka uga saarto ayna tiraahdo meeshaad jeceshahay aad anigu qayladaada kuma xamili karo kumana hay karo. balse Ishow Speed markii hooyo ay guriga kusoo ceyrisay hooyadiis iyo aabihiis xilli hore ayay kala tageen oo aabba ayuu wacay waxa uuna weydiistay inuu gurigiisa yimaado ama uu guriga la soo dego balse aabbihii si gacmo furnaana ayuu kusoo dhaweeyey oo wuxuu yidhi gurigeyga imow gurigeyga ayaad waxaa doonta ku samayn kartaa waxaad jeceshahayna ka hirgelin kartaa. balse gurigii ayuu tegay Ishow oo maalmo kadib noloshii ayaa u kala kacday oo saaxiibo cusub ayuu yeeshay oo caalamkii oo dhan ayaa laga bartay lacag aad u tiro badanna wuu sameeyey oo aabba ayaa garabkiisa noqday oo live-afkiisa in badan kala soo qayb qaadan jiray kuna dhiirigelin jiray inuu heer ka gaaro waxaan uu jecel yahay ama waxaan qalbigiisa ka dhex guuxaya. Speed maantay waxa uu jiraa 21 sano waxa uu haystaa maal adduunyo lacag ka badan 41 malyan oo dollar. waxa uu adduunka maal gashtay meelo badan oo caalamka ka mid ah
balse xilligan la joogo hooyadiis markii ay aragtay magaca iyo maalka iyo dhaqaalaha uu sameeyey ayay dib u soo raadishay Speed oo barbaahinada caalamka ayay soo hor fariisatay. Waxa ayna tiri waxa aan jeclahay wiilkayga Speed waana ku faanaa, balse isagu wax jacayl ah ama wax dareen hooyanimo ah uma hayo, ilaa heer uu gaaray inuu ka hormarsiiyo Cristiano Ronaldo oo uu yiraahdo hooyaday Cristiano Ronaldo ayaan ka jeclahay, oo halkaas ayada ayaa isgaarsiisay. This guy asked me CR7 on my mom. It's the most easiest question, bro. Obviously, CR7, bro. I mean, mom, I'm sorry, but you're not the one who birthed me, so I had to choose CR7 over this one. Adduunyadu waa laba dhinac oo kala duwan. Cristiano Ronaldo oo sidaas hooyadiis uga hormariyay. Cristiano Ronaldo waa ninka sameeyay in uu gabadhii uu qabay ay u kala tagaan ama uu u furo, maadaama ay ixtiraami weysay hooyadiis uuna guurkeeda diido uu nolosheeda dhanna soo afjaro. Naagta xilligan uu qabo naagtii uga horreysay waxa ay ku kala tageen ixtiraam darro keliya ay hooyadiis u geysatay. Waxa uuna yiri mana guursanayo, mana ila noolaanayso naag hooyaday aan ixtiraam u haynin. Cristiano Ronaldo heerka uu jacayl ama ixtiraam uu hooyadiis u hayo, waxa uu yiri hooyaday waa inay soo degtaa gurigayga qayb ka mid ah si aan xilliga habeenkii uga warhayo xaaladeeda caafimaad, una ogaado xilli walba oo guriga jooga ama ugu imaado hooyaday sida ay xaaladeeda tahay. Taasina waa qaab nololeedka ama barbaarinta ubadkaaga sida u barbaarisid iyo sida ay ku noqon doonaan berri markii ay weynaadaan. Ishow Speedna hooyadiis waxa uu gaarsiiyey heer uu ka hormariyo qof uu taageero u yahay. Ninna hooyadiis gurigiisa ayuu qayb ka soo dejiyey oo waa nin taajir ah oo awooda inuu adduunka meeshuu doono ka dejiyo, looguna hayo ama hooyadiis loogu xanaaneeyo. Ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan haddii aad nala soo gaartay waad ku mahadsan tahay. Muuqaalkani maanta intaan ayuu ku egyahay. Muuqaalka muuqaal lamida intaa ku kulmayno mahadsanidin.